السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحابتا دمانتين أصحابتا عصوبة نوصو بيرتي واد مادسنتين دمانتين ولي waxaan sii wadnaa maxay ahayday cashiraantii kooraskii maxay ahayd front end developmentiga ahaa maaragtay aan dib la qaaday maxay ahayday weli waxaan ku jiraa qaybtii ugu dambeysay HTML-ka waxa weeyaan waa qaybtii ugu dambeysay waxaan baranaynaa maxay ahayday advanced HTML sida tables iyo formska marka cashirkan maanta waxaan kaga hadlaynaa tableka tagiska aan isticmaalayno iyo attributeska aan isticmaalayno waa maxay ahayday kuwa weeyaan tableku waxa weeyaan waa maxay ahayday waa qaab hawaysan oo maaragtay oo ka kooban maxaa la dhahaa rows iyo columns rowsku waxa weeyaan waa hadda saas oo kale student iyo markskaasi waa rowski qaybta taaganna waxa weeyaan maxay ahayday waa columnski weeyaan marka tableku intaas ayuu ka kooban yahay marka aan samaysano maxay ahayd file cusub oo maxay ahayd HTML ah okay marka Visual Studio Code ayaan aadaynaa file cusub ayaan samaysanaynaa waxaan u bixinaynaa marka tables.html ayaan u bixinaynaa sidii caadada ahayd waxaan samaysanaynaa qaybtii structure-kii dhismihii ugu horreeyay ee maxay ahayd HTML-ka marka haddaad shift iyo exclamation marks la taabatid wuxuu kuu soo saarayaa qaybta maxay ahayd structure-ka HTML-ka marka title-kan ka bedelo marka maanta tables ayaan ka hadlaynaa table ayaan u bixinaynaa marka meesha body-ga waxaad ku qoraysaa table ayaad ku qoraysaa marka tagga ayuuna siinayaa kadib waxaan sameynaynaa rowgii oo tr loo soo gaabiyey rowgana waxaa kusii dhex jira laba cell oo kale ama laba qaybood ayuu rowgi ayuu ka kooban yahay inagu sayn usoo sameynay tableka oo kale saas ahaa student iyo codekaas ayuu row ka kooban yahay marka rowga ayaan sameynaynaa marka td ayaad dhahaysaa marka laba td weeyaan dhib yar tahay okay marka row kale ayaan sameysanaynaa haddana rowga waan kasoo baxaynaa row kale ayaan sameysanaynaa haddana td ayaan dhahaynaa cellka si aan u sameyno xabad kalena noo samee marka haddii aan hadda aan save dhahno save garee kadib waxaan leenahay open with live server allow access okay HTML course tables waxaa soo saaraya sababtoo ah halkan tableka ayaa waxaan u baahanahay inaan siino border because tablesku waxa weeyaan wayna muuqan karaan borderna way yeelan karaan mana yeelan karaan marka haddii aan hadda borderka aan one ka dhigno halkaas oo kadibna aan save dhahno markaas waa inuu noo soo baxaa kan hortaas ka xidhno marka uu yar yahay laakiin wuu noo soo baxay arkaysaan sababta waxba baynaa ku qorin meesha wax lagu qorqoray xogtaa ku qoraynay marka waxaan sameyn karnaa width ayaan siin karnaa ballac oo kale
marka balaca waxaan ka dhigaynaa 200 height kana waxaan ka dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa isagana 200 marka haddii aan save karayna hadda wakaas uu noo soo saaray saad arkaysaan tablekii. Okay. marka table waxaa weeyaan saas ayaad samayn kartaa. hadda haddii maaragtay aan waxaa jira attributes kale oo iyagana rabay inaan maaragtay tuso. marka haddii aan tableka soo koobiyeysano yani waxaan rabay sida la isugu daro la isugu furo maxay ahayday sida la isugu furo maxaa la dhahaa maxay ahayd rowska iyo columnska ayaan maaragtay rabay inaan maxay ahayd barano. marka halkan kanoo kale haddii aan hadda dhahno call span oo tuuda isku furo oo save dhahno wakaas uu laba column waa kan maxay ahayd gudubka ah ama maaragtay pageka taagnida maaha balaca saas oo kale jiif oo kale aha. marka xabad area ayaa meesha ku jirta td-gan hadda uga baahnaa iska tirtiro aan save garayno. Okay, marka waad arkaysaan maaragtay wuu isku furay labadii cell. marka labada cell haddaad rabtid inaad isku furtid oo kale saas ayaad samayn kartaa. dhinaca taagnidana haddii aad rabtid inaad isku furtid ayadana waxaad dhahaysaa waxaan dhihi karaa kale maaragtay td-gan ayaad waxaan dhahaynaa row ayaad leedahay kadibna span ayaad raacinaysaa. marka ayagana 2 ayaa ka dhigaynaa. kan kalena waa iska masaxaynaa sababtoo ah uma baahnin. marka saad arkaysaan sorry waxaan ka waday row span okay marka okay call span iyo row span. okay waxaan rabaa inaan table cusub sameynaa si aan rowga idin tuso row spanka. marka waxaan raacinaynaa row span laba isku furayaan leenahay markaas control s. marka saad arkaysaan halkaa uu kan ugu hooseeya labadii ayuu isku furay. marka kan aynaa u baahnay inaan iska tirtiro iska tirtirayna. okay marka saad arkaysaan hadda sidaan rabnay ayuu noogu soo saaray. wuxuu isku furay rowgan dheerarkiina saas ayaa la isugu furaa. marka hadda aan maaragtay aan wax ku qorno table cusub ayaa samaysanayna. kana iska tirtiro. halkan hadda ku qorno kale students halkan markis ayaa ku qoraynaa dhibcahooda oo kale. halkan waxaan ka dhiganaa 85 kadibna waan save garaynaynaa. markaas wuu noo soo saaray meesha ugu hoose saad aragtaan. marka aan word figure iyo waxaan iska tirtiro uma baahin hadda sababta waxbaa ku qoray.
kadib save ayaan dhahaynaa. marka hadda waa tablekii halkaas ayuu noogu soo saaray saad arkaysaan. haddii aad rabtid borderka waad ka saari karaa markaad rabid inuu muuqdo. save ayaan dhahaynaa halkaas isagii oo lahayd row. marka tables xagga ayaa kusoo gabagabeynayna cashirka soo socdaan insha allah forms ayaa ka hadli doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta cashirkan maanta waxaan ku baran doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan ku baran doonaa maxay ahayd forms ayaan ku baran doonaa. formsku waxa weeyaan waxyaabaha aad maalin kasta badanaa aad la kulmaysid markaad website gashid. waa qaabka aad maaragtay aad xog aad kaga helaysid macaamiishaada ama dadka isticmaalaya website-kaaga markaad rabtid information aad uga baahan tahay. informationkaas oo maaragtay noqon kara waxyaabo kala duwan sida magaca, emailka, taariikhdu qof ku dhashay wax kastay noqon karta. markaas maxay ahayday visual studio galo. markaas waxaan u baahannahay formka file cusub inaan samaysano oo la yidhaahdo maxay ahayday forms .html. markaan filekaa samaysano maxay ahayday tagga ugu horeeya maaragtay lagu wareejinayaa maxay ahayday waa form. qaybtii hore structureki ugu horeysana visual studio code ayaana siiyey saad arkaysaan. marka halkan waxaan ku qoraynaa maxay ahayday forms titleka ciwaanka. halkan boodiga u dhaxaysana waxaan ku qoraynaa formkeeni oo tag waxa weeyaan waa maxay ahayday formkaad ku bilaabaysaa formkana waad kusoo xidhaysaa marka form tagga. marka waxyaabahaad u baahan tahay ayaad halkan dhex gelinaysaa oo maxay ahayday oo input ah. inputkuna wuxuu wataa waxa la yidhaahdo type attribute. marka type attribute-ka baad bedelaysaa. haddaad email rabto email baad ka dhigaysaa, haddaad password rabto password ayaad ka dhigaysaa. marka aan isla fiirino input waa meeshii wax lagu qorayay. maxay ahayday haddaan dhahno text. okay marka text haddaan ka dhigno ka labaadna waxaan ka dhigi karaa copy haddaan dhahno. kan waxaan ka dhigaynaa email. meesha typeka baad attribute-kan typeka baad bedelaysaa. halkan waxaan ku qoraynaa password. kana waxaan ka dhigaynaa radio button ayaan ka dhigaynaa. ayaan ka dhigaynaa. kana waxaan ka dhigaynaa taariikhda oo kale. marka inputku saad arkaysaan type attribute-ka waxyaabo badan ayuu leeyahay. waxaa kaloo samayn karaa yani markaad formka buuxbuuxiso submit meeshii la dhahaya iyadana yaa samayn karaa. marka waxaan leenahay submit. okay marka hadda haddii aan save dhahno oon maaragtay browser ka furno way forms yeah forms kaas. marka waxaa noo soo baxay fieldiyadii waad aragtaan 1 2 3 checkbox datekey submit waxa dhan way noo soo baxeen laakiin yani waxa laga wado ma fahmayno. marka fieldiskii oo dhan way noo soo baxeen marka fieldiska wax laga wado ma fahmayno.
marka si loo fahmo maxay ahayday wax laga wado يعني waa inaan wixii lagu garan lahaa raacino kan hadda email baa laga wadaa ama password baa laga wadaa yani qofku si uu u fahmo maaragtay waa inaan u sheegno marka laba nooc ayaad ugu sheegi kartaa mid halkan ayaa waxaad raacin kartaa placeholder ayaad raacin kartaa marka haddaa ku qorro kale hadda maxamed oo maaragtay aan safe dhahno refresh marka halka saas waad ugu sheegi kartaa waxaa kaloo samayn karaa waxaa jira wax la yidhahda label tag la dhaho ayaa jira marka tagaas ayaa waxaa ku qoraynaa magaca marka haddii aan kana safe dhahno waxaad arkaysaa halkan wuxuu nasiinaya maxay ahayday magaca ayuu raacinayaa sayaan dhahayna halkan marka halkan waxaan raaci karaa break and break. Okay, haddii aan hadda safe dhahno safe garayno wuu noo soo saaray kuwaas marka halkan waxaan raacinaynaa level halkan magac maahane waxaa weeya waa emailka email marka levelkaa bedeleysaa halkan waxaan ka dhigaynaa password halkana waxaan ka dhigaynaa kan waa radio buttonka iska dhaaf marka hadda haddii aan safe dhahno formkii waa kaas radio buttonkana rec okay marka waxa labaad raba inaan ka hadlo maxay ahayd waa radiogan radio saad arkaysaa waa calaamada yareed maaragtay aad tig sii karaysid marka badanaa labo ayay maaragtay ayay soo socdaan marka haddii aan ka dhigano copy haddaan ka dhahno oo halkana ku qoro level level ku qoran maxay ahayday waxaa tahay lab ama channel waa iska dheh lab iyo dadka midkaa tahay dad wisanag markanayaan
male ana waxaan ka dhigaynaa female. okay haddii aan save dhahno markaas halkan waxaan dhigi karaa waxaan raaci karaa gender ayaan dhigi karaa break genderka walaas. marka meesha waxaan rabnaa markaan tig siino labadaba hadda tig bay noqonayaa. marka waxaan rabnaa inaan badanaa hal mid ama nin baa tahay ama naag mid baad sheeganaysaa maogtahay. markaas si aan maxay ahayd aan u cadayno waxaan bedelaynaa meesha ay magaca ku qoran tahay ayaa waxaan ku qoraynaa isku wax baan ku qoraynaa gender. halkana gender ayaan ku qoraynaa marka safe ayaan dhahaynaa. marka hadda haddii aan refresh dhahno labada ma samayn karno markaas mid umaan samaynaynaa. marka radio buttoniska saas ayaa loo isticmaalaa. waxaa noo soo raacaya maxaa la yidhaahdaa checkbox. checkboxigana asagana waxaa weeyaan waxaan ku qoraynaa halkan ayaan ku qoraynaa input checkbox ayaan leenahay break kadibna safe ayaan leenahay. okay marka checkboxigan waxaan leenahay waxaan ka dhigaynaa 3 ayaan ka dhigaynaa. marka waxaan rabnaa inay kala doortaan waalidku inta caruura ay dhaleen. okay inay kala doortaan ayaan rabnaa. markaas marka haddii aan dhahno level how many children you have oo xaggana maaragtay break raacno kadib aan safe dhahno. marka haddaan ku wada dhufano markaa tig ayaa wada noqonayaan. laakiin waxaan rabaa inaan ka doorano inaan maaragtay kan level raacinayo halkan inaan ku qorabahayn saxsana. halkan waxaan dhahaynaa 3 4 5 ayaan ka dhigaynaa. marka safe ayaan dhahaynaa. marka waxaan rabnaa
inay maxay ahayday inaa maaragtay uu waalidka doorto yani daarun u dhalay. marka children magacaas waa bedelaynaa. children saf ayaa leedahay. markaas saad arkaysaan uu ka dooran karaa kolba hadday 3 4 5. marka waxaad moodaa inuu mara saf dhig loo marinayo. saf garayno parent. هذا صيف ظهره. هذا على how many children you have. واللي بدي ده okay. fieldiga kale ee maaragtay baranayno waxaa weeyaan maxaa la yidhaahdaa selection ayaa la yidhahdaa. marka selectionka waxaa gelinaynaa maxay ahayday halkan select. marka wuxuu selecting ku siinayaa drop down ayuu ku siinayaa. marka option kan u baartay badinaysa. halkan waxaan ka dhigaynaa marka 1 2 3 xiriirna kadib waa save karaynaa. okay. marka halka drop downkaas ayuu siinayaa kaana maaragtay select weeyaan. fieldiga kale maaragtay asaguna muhiimka waxa weeyaan waxaa la dhahaa text area oo ku siinaya